kusoo dhawaada barnaamijkeena arrimaha Bollywoodka. haddaba haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka ku saabsan Hindiga, Mareykanka iyo dhacdooyinka caalamka. Sunil Shetty filimkiisa Hollywoodka ee Call Center oo warbixin dhameystiran laga soo saaray. Sunil uu soo rogaal celiyay haatan mashquul xad dhaaf ah ayuu bartanka uga jiraa maadaama filimkiisa Hollywoodka ee Call Center uu ka shaqeynayo. sidoo kalena macluumaad dhameystiran ayaa laga soo bandhigay filimkan Call Center. waxa directorka ninka Chinese Americanka Jeffrey Jean waxaan haatan lagu duubay magaalada Hyderabad. filimtiisuna waxay ku saleysan tahay dhacdo si dhab ah loo diiwaan geliyay kuna saabsan askari Hindiya oo ka shifayo dhac loo geystay bar control ee telefoonada laga hago oo malaayiin lacag ah lagu lunsaday. Call Center wuxuu ka hadlayaa 4 qof oo ka shaqeynaysa xarun telefoonada laga hago ee iska leedahay Hindiya waxayna dhac u geysanayaan shirkad Mareykanka laga leeyahay iyagoo si xirfadaysan uga dhacayo 381 milyan lacag ka badan. waxaana kiiskan ogaanayo Sunil Shetty oo ku jilayo askari Punjabi ah ama Singa kadibna sirdoonka Mareykanka ayuu wargelinayaa waxayna isla sameynayaan baaritaan heer caalami ah. waxaa jiro qorshe la doonayo filimka Call Center in luqadaha Hindi iyo Telugu lagu codeeyo. sidoo kalena waxaa filimkan kula jiro Vishnu oo mashruucan maalgelinayo iyo atirshada caanka ah ee Kajal Agarwal. duubista filimkan waxay soo bilaabatay bishii September ayaan ka soo gudubnay. Sunil Shetty oo 58 jir ah ayaa action badan ku soo bandhigi doona filimkan iyo isburbursi badan maadaama uu tuugo heer caalami ah la dagaalami doono. wuxuuna mashruucan ku aqbalay in doorkiisa uu yahay mid adag oo daawadayaashu ay ka heli doonaan. sidoo kalena waxaa la qorsheynayaa in 6 bilood ee hore ee 2020 filimkan Call Center gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka laga daawan doono.